taliyihii guud ciidamada dib u xireynta hubiga Shabeelle Xanafi Sheekh Isxaaq Kulmiye waxaan go'aan isla qaadanay in aan howlgalkaas dhinac ka noqono oo aan ku biirno sidii suldaankaayna iyo boqorkaayna iyo nabadoonnada qaybahooda kala duwan waana isla garanay dadaal dheer kadib waxaan noo hirgashay inaan dhinac ka noqono xureynta jiinka hubiga Shabeelle Cabdi Axmed Ibrahim awaanduulaha ciidamada dib u xireynta jiinka Shabeelle waxaan diyaar u nahay in aan la dagaalno nimanka loo yaqaan argagixisada al-shabaab waxaan diyaar u nahay in aan dalkeena dadkeena diinteena aan difaacano nimankan nabadiida ah waxay diyaar u yihiin in ay wadankeena ama dalkeena in ay ku takhrifulaan laakiin midaas midaan qaadan doona ma aha qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ciidamadan soo abaabushay ayaa waxa ay sheegeen inay ka go'an tahay dib u xireynta deegaanadooda madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka wuxuu cilaamiyay dagaal oo laaga hortagayo al-shabaab hiiraan ay ka socdaan shabeellada dhexe ka socdaan jiinhubi ay ka bilaabanaysaa dalkayna inaan xureysano ayaan diyaar u nahay armeela qaadateen dalkayna inaan xureysano aan diyaar u nahay insha Allah ta'ala waxa iclaami madaxweynaha federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iclaami waxa ku xigi madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Ali Guudlaabe Xuseen ayaa iclaami iyo macalin ku xigoonadooda waxaan diyaar u nahay sidaan u joogna inta insha Allah ta'ala inaan maaragtay dalkan xurnimada oo maaragtay hadii Ilaahay ma dhihin inay ka socoto anagoo jareer weyne anagoo shiilo lixda odigoo shiilo waxaan ku baaqaynay ciidankana meeshaan joogo waxay u joogaan dib u xireynta jiinka ay meeshaan u joogaan waxaan rabnaa taakuleen waxaan rabnaa hub iyo saanad waxaan u baahanahay in la garab qabto ciidankan ciidamadayna oo gadaashayda joogo saldanada lixda shiilo waxay diyaar u yihiin inay xureystaan jiinhubi laga soo bilaabo balcad ilaa 7 jisiir waxa cadawga ku duulay wadankayna ama gobolkayna ama deegaanka jiinhubi shabaab waxaan ku qasbanaa in iska xoreyno waan ku takrifashay doorar badan ay naga dishay doorar badan ku dhintay halyeeyan badan naga maqan ninta meeshan fadhiso nimow adeerkiis aan la bireynin ama abkowgiis aan la bireynin ma joogo niman yahow bahasha waa dhamaatay Soomaaliya oo dhan meel walbay ku nooshahay cid aysan nimankaas nabadiidka ah ay dadka qabin ma laha war niman yahow waxaad yeelaysiin Ilaahay aan ka cabsano heeriyadan gumaysiga shacbiga kici kara aan kicino war inaan iska kicino diyaar ma u nahay war inaan iska dhicino diyaar ma u nahay war gabariyay naga hirnaa iska dhicino nin walbo deegaankiisa xoreysto xornimadii aan diyaar u nahay dadkayni iyo dhalinyartayni waa kuwaas wixii naga maqan oo banaanka jirana waa soo wada galayaan waa imaanayaan hadduu alla raali ka noqdo dawladda cadaalad ah samaysa kaliya Suldaan Islow Ciise iyo boqor Cismaan Dhuubow oo ah odayaasha dhaqanka ee ciidamadan ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in xilligan la iska dulqaado maleeshiyada argagixisada al-shabaab ina aan loola gabadha diintaada xaq in uu gabatid ma aha xaq in banaanka loo soo daahir al rabaa oo la iska dhiciyo وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا رسول كان عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فمن لم يستطع فبقلبه فمن لم يستطع فبلسانه صدق على هذا الشيء لكن وأنت وحي تاجت مربنا عنك فبقلبه مربنا لسانه مربنا فليغير بيده قعنتم كزولين سراكيش وحن فرا وبلا لحد شيل وسرقال حنيف أو جهريو إني جاري ذي قبل كجستان كحوريان جين كهوي أو إسكحوريان معنا نبديت كشباب شيلنا هذا وحي ديار أتهي إني هيريدا إسقاطي علايسك إسقاطي دجالك ومدحوين حسن شيخ علامي نول بقبل كي صح حريست اللي رشيدنا إني قبل كده حريسته دياري أتهي مذكور عن مصر لا بلا بنا جرا وحن ربنا
culayskana saaran inaan iska dulqaadno waxaan u sheegaynaa madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen adaa cilaamiyey waxaad joogtaa maanta masaajidka cali gaduud annagana maanta waxaan rabnaa inaan tagno balcad ka soo bilaabatay ilaa imahaday maanta degaan shiidlo waay waxaan rabnaa inaan culayska saaran inaan annaga qaadno waa siduu suldaankayga u sheegay cali gaduud ku wareertay aku wareerin balcad ilaa imahaday shiidla xoreeyayse adna nagu soo ku soo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid iyo waliba tifiyada Soomaalida dhammaantood kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena caawin 24 saac 7 maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilkaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye aniga way qanciyay adiguna ma ku qanciyay